Bismillaahi Raxmaani Raxiim kusoo dhawaada qodobada wararka idin hayso Toosnaa Media. Dowladda Soomaaliya oo u jawaabtay Imaaraadka mid ka mid ah fanaaniintii ugu caansanaa Soomaaliya oo Muqdisho ku geeriyootay. Wararkii ugu dambeeyay ee qaraxa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho. Qodobada wararka kale ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo qaaday tallaabo cusub oo la xiriira kiiska dacwadda badda Soomaaliya. Qodobada iyo qodobo kale oo dhowr ah insha Allah tacaala idin faahfaahin doona. Kusoo dhawaada faahfaahinta wararka. Dowladda Soomaaliya ayaa u jawaabtay Imaaraadka. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cismaan Abuubakar Dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si degdeg ah uga hadlay warqad dhawaan ka soo baxday dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo looga hadlayay rabshadii Muqdisho iyo doorashooyinka dalka. Tan iyo intii ciidamadeena qalabka sida ay soo afjareen isla markaana kala eeriyeen maleeshiyaadkii caasimadda ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda kaga dhawaaqay inaan dawladda jirin dalkana ay iyagu mas'uul ka yihiin waxaana soo gaadhayay waraaqo hambalyo iyo dhiirigelin ah oo inagu boorinaya inaynu adkaysano nabadgelyadeena iyo dawladnimadeena. waraaqahaasi waxay naga soo gaadhayeen wadamo badan oo aynu saaxiibnahay gaar ahaan wadamada Carabta oo markay maqleen caasimadda dhexdeeda oo laga leeyahay dawladda ma jirto aad u warwareen. xalay ayay wasaaraddeena arrimaha dibadda soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen. laakiin halkan waxaan idinku yeeray in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno ay la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena way keysinaysay. waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena way keysinaysay. iyo dowladda Imaaraadka Carabtu waxa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo waliba aad u qoto dheer. Waxa kale oo inta raaciyay warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsaneyn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkirayso taa oo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa daraad ee ahaa dowladdu ma jirto iyo warqad dowlad Imaaraadka ka timid ay isla socdaan. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday dowladda Imaaraadka in ay rabto in Soomaaliya ay noqoto sida dalalka Yemen iyo Liibiya oo kale. Warqadan ayaa waxaa ka muuqata in Imaaraadku Soomaaliya uu ka rabo inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ku burto fowdo iyo barakac. Dhinaca kale Wasiir Dube ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Imaaraadka ay ahaayeen laba dal oo leh taariikh fog iyo saaxiibtinimo ku dhisan walaalnimo balse wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan madaxda Imaaraadka Carabta gaar ahaan kuwa arrimaha dibadda ay xub siibteen inay dhaawacaan iskaashiga iyo xiriirka labada dowladeed iyo labada shacab. Muddo aad u dheer Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta waxaa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo waliba aad u qoto dheer. Xiriirka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ahaa iyadoo waxa oo dhami jireen haddana muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii madaxda Imaaraadka u qaabilsan ama arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka tarjumaynin walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliya iyo dowladooduba waxaa galay shaki ah oo in ay isweydiiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed ayuu markale yiri Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya. mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan Soomaaliya oo Muqdisho ku geeriyootay Faadimo Cali Nkrumah oo ahayd fanaanad caan ka ah oo ka tirsan gobolada Waaberi ayaa Allah u naxariistay maanta ku geeriyootay isbitaal Martiini ee magaalada Muqdisho. Marxuumadda oo maalmihii u dambeeyay xaalad caafimaad oo la xiriirta cudurka safmarka ah ee coronavirus-ka loo dhigay isbitaal Martiini. xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo war ka soo saaray geerida marxuumadda. Roble ayaa ugu horeyn geerida Faadimo Nkrumah uga tacsiyay qoyskeeda, baxda fanka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wuxuuna ku sifeeyay fanaanad qaran oo kaalin weyn ka soo qaadatay dhismaha qaranka iyo wacyigelinta bulshada. Howel iyo mas'uuliyiin caan ah oo cudurka corona u soo ritay kuwa oo ugu dambeyntiina u geeriyooday gudaha dalka iyo dibaddiisaba. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Ex-Control Balcad gaar ahaan dhawaaxiga warshadda Xayla Bariise ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo khasaare kala duwan geysta ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala eegtay agaasimo waaxeedka deegaanka Daarusalaam ee degmada Yaaqsheed.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxayay khasaaraha ka dhashay qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay agagaarka isgoyska X Control Balcad, gaar ahaan nawaaxiga warshada Xayla Bariise ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo khasaare kala duwan geystay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala eegtay agaasimo waaxeedka deegaanka Daarusalaam ee degmada Yaaqshiid. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in miinadan ay ku dhinteen ilaa 2 qof, sidoo kalena uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa goobta gaaray, kuwa oo sameeyay baaritaano dheeraad ah kadib dhacdada. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay falal ammaan darro ah oo u badan qaraxyo, kuwa oo geystay khasaarooyin kala duwan. Dowladda Kenya oo dhowaan ku guuldareysatay dalabkeedii ahaa in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxeysay Soomaaliya ayaa haatan bedeshay dhammaan qareennadii dacwadda badda ee taal maxkamadda ICJ. Xukuumadda Nairobi ayaa soo xulatay ilaa 8 qaran oo cusub, kuwa oo 7 ka mid ah ay yihiin ajaanib, halka xubinta 8aad ay tahay haweeney Kenyaan ah. Dhammaan qareennadan ayaa ah kuwo caalami ah oo leh khibrad sare, isla markaana kasoo shaqeeyay xarumo kala duwan iyo jaamacado, waxaana hogaaminaya nin lagu magacaabo Professor Sean Murphy oo uu weheliyo qareen kale oo la yiraahdo Tullion Travis. Hogaamiyaha qareennada oo lagu magacaabo Professor Sean Murphy oo ka tirsan George Washington School of Law iyo garsoorehii hore iyo bare culuumta sharciga ka dhiga dalka Ingiriiska Tullion Travis, iyo Professor Lawrence Boyson oo isna khabiir ku ah sharciga caalamiga kana socda jaamacadda Geneva ee dalka. Professor kale oo lagu magacaabo Phoebe Okwah oo bare ka ah sharciga caalamiga ee jaamacadda Queen Mary ee London ayaa ah qofka kaliya ee Kenyaanka ah, waxaana qayb ka ahayd dacwadda badda ee Gambia ka gudbisay Myanmar. Professor kale oo lagu magacaabo Makene Mbogo oo reer Senegal ah oo ka dhiga sharciga caalamiga ah jaamacadda Geneva, iyo sidoo kaleeto koox ka mid ah Professor Makene Mbogo oo reer Senegal ah oo dhiga sharciga caalamiga ah ee jaamacadda Geneva. Christian Tamis oo bare ka ah jaamacadda Glasgow waa muwaadiniin Jarmal ah, iyadoo dhowr jeer kasoo muuqatay isla maxkamadda kiisas kala duwan. Iran Schweiger oo la keenay Israa'iil, waxa uuna qayb ka qaatay kiisas u dhexeeya dalalka Peru iyo Chile. Xubnaha ay keeneen soo xulatay Kenya waxaa ka mid ah madaxweynaha nuqulada juqraafiga ah Walter Lathrop, ka oo qareennada u fidin doona caawimaad dheeri ah. Si kastaba, arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo haatan wax ka yar bil ay ka harsan tahay dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhaxaysa Kenya. Inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa qodobadeena wararka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.